عرفات ما دام وشغلنا لين محل لهذا عاويته وحكسوية هو يوين كدلك يا شيوخ دي أظن قوية قانا نين أبوانا أو سيدا شيخ وحنو دقسي وحو دقسين كردتك ما تزين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز وكلهم بان السيابة أي مشايخ ووين أو علماء أو إلهي وحبري أو دين له أو مساجد الإمامية كا أو يوين ووين الركعة أنا جو شعر قابن لا يقصد تغيير لا يقصد تبكيه. runtii marna moraal bay ii tahay iyo guubaabo iyo dhiirigelin marna de xogaa waxaan yar dareemayaa maadaama de aan xilligeedii ama aynigeedii aan xogaa aan marinin mawduucii laga hadli lahaa mawduucyadii laga hadli lahaa kii ugu qaalisanaa weeyaan midkaas hadda uu sheekhu ka hadlay ee culayska u saaray waxa u baahan in la isweydiiyo waa hooyo iyo shiishay cabtaa isma keenayso ها بل أفرسوا معني وهو ده أنت نولا أدونك كنا المسؤولية دي أقول قال السنيد روح قبطاي بحيساس ما مسؤولية دي نوع عسى قفك هي شيشو هذا ندي بقول نقول شيشو عبيا ووحنا سيالي نويان ها الصومالي ده وحكومة هذا جيل عردي سيدر درسي أرنكيسي محاد مدة معنيه جيل عردي سي بعد الضيق وويد جيلي ووينا بعد الضيق معنيه تذكر عرض قرنين جيلي ووينا واحد اللي يعدي ضيق معنيه نرجيه راي قرب بعد السهر مع الملايين ساعة وأكيد بدي ضيان ده ماشي قيقة مرتي سنة هي يا هو يدي بعد الأكتري ده مع كسدح شركة حفاية دقيقة كسر دبقلها يدي ما حق الله كله هرايا ها ما شاء الله ما كله هرايا ويان رنتي هو يدو ده ما صلوا ما سووا بكرو أو ده رسول كريم صلوات الله وسلامه عليه وعنور شيء ماشى أي مرة سوي حق عيلاد هاي يو كرامة يو مقرنة حقوق ده هو يدو لاد هاي marka hooyadii noocaas ahayd hooyadu waa macallimad waa saaxiib waa walaal waa hooyo waa mas'uul mararka qaarkood waa hooyo waana aabo waa ayay waa awow wax walba isku darsanaysaa hooyadii mas'uuliyadda noocaas haysay ilmaha macallinka u ahayd shiishay bartay ilmuhu shiishu bilaabaya saaxiib bay u ahaydo saaxiibkaas wuxuu rabaa saaxiibka wanaagsan meelaha wanaagsan buu ku jiidaa Soomaa saaxiibka xunna meelaha xun buu ku jiidaa hooyada saaxiibka ku ahayd meesha ayada ahayd bay kula gashay hay meeshaasi meel lagu soo koobi karo hadal iyo qiyaas qaadasho ma xaka xanuunka uu sheekhu kaga shanqariyay meesha baasha la isticmaalayo waa naqas waa qiiq waa carbon مش واحد الاستعمال هنا والريسبيراتوري سيستم كي واللانجي بقى الاستعمال يا لانجي هرت قفك إلهي ولما يستري صوركم وأحسن صوركم وحبل لك عم يسوي ريبن دي هذا حتى إلا ضحي إلهي ملك له كوجو بوحية إيش أو كاسو تري ملك له كوجو سو بوحية وهذا فهم سنين ولما يستري قفك بني آدم كا سمايس كيسو ولما يستريه كبيولوجي أهان يو قبل سمعت كهونا سيستم كستاي سيستم كله كحريه قف سنبب الآن نولان كرمي يشرى قف ودنا الآن نولان كرمي يشرى مسكح لهذه قف كلا قصة صار ميلا نولان كرا سبب كنا أركي سو هذا استعمال يشرك أيوه إذا ويشرك هو كوشقي وديك جنا markuu jirku soo isticmaalo fiinanka ka soo qaaday iyo fiina kaafiyaasha wadnaha ku soo ridaan waa dhiig la soo isticmaalay ka bacdi xididda kala ka sii qaadaya artery baa ka sii qaadaya sanbabku geynaya sanbabka lagu soo sifaynaya haddana waxa ka soo qaadaya fiin kala ka soo qaadaya sanbabku ku soo celinaya sanbabkuna haddana dhiigga caafimaadka qabay ee la soo sifeeyay wadnu lagu soo sifeeyay dhiig lagu soo sifeeyay sanbabka ee wadnaha soo galay wadnihii ya haddana jirkii u dirayo qaybinaya waa meesha dhiigga uu ku sifaysmo weeyaan dhiigga lagu soo nadiifiyo weeyaan markaan de xogaa xagga biologiga markaan fiirino macnaheedu
marka meeshii la rabay inaad oxygen caafimaad qabta aad qaadatay de carbon baad qaad ka bixinaysay mid ka sii wasakhaysan yaa hadana nafti ku celisay weeyaan soo asuu sheekh sheegay nafta Soomaaliya cadibin waad cadibtay weeyaan de carbon baa isku celinaysa hadhow qof casab dhahnay dabeel baa igu dhufataan malayniya xagee dabeelka ka dhufatay adiga baashi kharibay weeyaan meeshii baa adiga iska geeyay carbonki wuxuu ku harhayaa oo ku dhagayaa ilan wax kasta air kasto la jiida waxayna inagu arkeenin oo ilma aragtaya yaa la socdo waad xareysay sanbabkaad ku xareysay sanbabkii uu fadhiisanaya oo dhagaxoobaya respiratory failure baa dhacay si fiican uma shaqeynayso waligaaba qufac ku nool ahaanaysa adduunkaaba marka baasha caafimaadna uma fiicna dhaqanna uma fiicna diinna uma fiicna de hooyo timuhu qaawan yihiin iyo wiil yar oo nigis gaaban baa isla fadhiya shishadii waana wax laga xumaado weeyaan runtii marka waa hooyo iyo shiisha cabtaa hal la kala saaro inta aan shiishada aan kaga gudubno wali waan sii raacanayaa inta sheekhu sheegay ina shiishadu xaraan noqonayso waxa keenaya wax allaale wixii maandooriya waa xaraan baa leeyahay aniga carafaada habeen man dhex istaagay waligii ma jiidin baasha laakiin waan wareeray waan tawakhay oo waan wareeray macni waxaan mooday baabuurkan soo raacay inuu soo qasay niyuma meesha naga keentan madaxa ii wareegay ilaa habeenkii guriga laga geeyay oo habeenka oo dhan bay yaqiiqsanay ilaa aroorti sibaan ahawaan tawakhtsana ruuxan dhex fadhiyo jiidayo soo uma adkeysanaya waxaas ها وعذابها يا نفط عقابها يا ويا مركب باشا عقابك كدينا ويا وهبينكي هو يدا موضوع عصور قلي وحكو قرن ماشا هبينكي هلو هو يدا بسيط عند عارف محمد نينكا ولالك هنا أبوانكا ما هتفيتي يا أنتو ساقو فيري وحوريني هو يدا صومان دولا ها de hooyada halalo ooyo weeye hooyada hallo ooyo ma hooyada mayna dhimanina way nooshahay hooyada halalo ooyo dacarurti baa ka maqano odaygii baa ka dhintay asay baa loo saareeyo wiilkii baa ka xiran oo marka hooyada halalo ooyo halala dareemo xanuunka macnihi marka meeshaas ayadaa wadi naga soo bedelaysaa warqada waasaas maasadan maxaad hooyo dhibtootay yaan raacinaya hadii la raahdo waqtigu wuu soo gaaban yahay maasadan shiishadii markaan inta yareed ka sheegay rag qaar baa garanaya waa la soo dad baa iga daba yimido inna way taageertay oo macnaheedu way ugu guubaabiseen hore u socdeen qoon xidhi maxad noo cayray oo uu tilshiishay isu dhiibaan iyo jalaatay dhuuqayaan marka dadka inta negative ka jecel way yar yihiin inta wanaagga jecel baa ka badan saasaan ku daynaynaa macnaheedu waxaan idhi intaan suugaan dhiteeyay ama geerar dhadhaabay heeliyo jiiftooyin dhaanshay miyaan dhadiga xaggooda dharaarahan aan jaleecay intaan dhuraha iga qaato haddaan dhahayaa oraahe dhuuxaansada oo warkayga ka saara wixii dhukaan leh waxaan idhi dheeman weeye habluhu dhool hore weeye xareedda dhaqaaqday weeye ubaxa dharabaysta weeye ee dhadiya ciiryaan hamoodin nin dhoohan baan ogeyne dhammaan waxa jooga noole waxaan garab dhiga haweenka ama ku dharaarsho hooyo miyuu ruux dhaaya saaray habluhu way ina dhaleene haddana way nala dhasheene kuwana way noo dhaxeene ragow hala dhowr hooyo waqa ha u geysan dhaawac dhaliil iyo ceeb ha saarin ka jooji wixii dhibaya liitiyo dhidirkaa hilmaama dhibkaad nala soo martayne maxaad hooyo dhibtootay waxaan la hadlayaa markaa hooyo kasta oo muslimada iyo hooyo kasta oo Soomaaliyeed ah hadda hooyo kasta oo diimo kala haysata dhibkan ma way haysataa macnaheedu ilaahay ha noo soo hanuuniyo hooyooyinka kale waxaan maxaad hooyo dhibtootay adoo qurux muuq dhalaal leh dhexdaada markaan ku beermay muxuu dhamankaagu holmay dharbal wajigaagu yeeshay maxaad hooyo dhibtootay maxaad hooyo dhibtootay maxaad hooyo dhibtootay maxaad dhadhamada ka soontay jal iyo dheef qaadan weyday muxuu isku dhogay bogaagu andhufta maxaad dhashiisay muxuu dhuuxaagu hooray culays la dhaqaaqi weyday muxuu dhabarkaagu diicay dhacdiyidka maxaad u jiiftay maxaad hooyo dhibtootay maxaad hooyo dhibtootay maxaad hooyo dhibtootay maxaad dhuubnaatay awgay markaad dhalaysay hooyo maxaad dhiig soo harwaantay dheecaankaaguna idlaaday maxaad hooyo dhibtootay maxaad hooyo dhibtootay
markay dhagahaagu qaylo maqleen goortan dhawaaqay inaan dhashay aad ogaatay dhacdiidka intaad ka toostay maxaad unkato jirkayga intaad dhoolaha cadaysay dhibtii ku hilmaanshay foosha halkaas waxaa la yidhi Soomaalida halkii maamada ka soo saareen weeyaan umul ka ilowsha dhowhaa marka naraada ilmaha markay maqasho waxa lagu leeyahay irbad ka bubiyaan baa lagu dhufanayaan nab idinka dhalay anagu ma dhalin ya maxaad dholdhoolin heeso dhamow aad igu qaaday maxaad tiri dhiiranowga dhigiisa ka fiicanowga horweyn dhalay loo lisiyowa hooyadii baan xasuustaa kuwa iga yaryar markay dhamowa ilmaha yankii hadda dhashay laga yaabo dee inuu ama saqiiri doono ilaahay baa garanaya wuxuu noqon doonee yaa wuu dhan yahay ayadu waa dhigiisa ka fiicane waa ma garanaysaa waa iska garanaysaa waxaa idhi maxaad hooyo dhibtootay maxaan dambarkaagi dhaadhiyey maxaad dhaxantiyo dabaysha dhar iiga ahayd qabowga hadduu igu dhaco xanuunna dhabtaada intaad isaarto adoon hurdada badha koolin dhinaca aan jiif la doonan habeenku muxuu dhammaaday adoo subaxii dhafoor xun weliba ilinkaa dhibcayso maxaad dhakhtar ila roortay maxaad hooyo dhibtootay maxaad iga dhowrtay baahi korriimana ii dhammaysay dhigayga si aan u gaadho dhallaankana uga sarreeyo dhaqaale adoon u haynin intaad dhididood shaqayso maryaha noocii dhalaal leh dushayda maxaad ku dhowtay maxaad hooyo dhibtootay dhulka isla dhacaysa haddii maalintii la iidayo shaar extra iyo surwaal yaroo hudaya lasuu ka soo qariyo waad isla dhacaysaa dhulka xagee laga keenay muuji kan ha layga saaro mid laba bahashiyo bacda laga soo bixiyey ya maxaad hooyo dhibtootay waxaan soo gebi dhacleeyo markaan hooyay dhaqaaqay dhulkana aan raad u yeelay garaad iyo dhimirba yeeshay intaad ii dhiibtay looxa dhigo tiri aad qur-aanka sumaca goortuu dhammaado intaan soo dheelalaabay kolkaan soo dhaca ardaaga intaad igu soo dhawaato iyo hoos dhigtay raashin diiran maxaad ii dharag tidhaahday kolkaan codhanyeen dhammaystay dhag edhiyoon aayar seexday maxaad hooyo dhibtootay maxaad nolosheeda dhaaday dhismaha reer iyo horseeday intaad dhidibada u aastay dhigtiyo udubka isku duubtay dhigtiyo udubka isla doontay dhagaati maxaad ku duubtay maxaad hooyo dhibtootay meesha waxa weeye markaad weynaato xataa gabadhu markii xoogaa soo yaqaan gaadho waxay ka yaabeen inay ku guumaysowdo ayadaaba nin usoo raraad hoostay ka soo hooy waa maxay baryahan waadan aamusan tahay maxaa kugu dhacay ayadii fadhiga ku soo celinaysa soo xaro lahayd yaa dhihi ma yar baxbaxdeedo reerkii ma soo salsalaantii lagu dhow si loo arkadee gabadhii oo magaranaysaa looga shukaanso ha walba ma dhahasadee hooyo ninkan aan ku hayo iska guurso xoogaa xagga Soomaalidu isku kama fiicno way ka yar kala xishoodaan laakiin saasaa fiican nin baan ku soo arkay hooyo ninkan reebel ka war waad dhihi kartaa gabadhaada waxay kamid tahay waa qaybta xanaanada ay soo galaysaa gabadhaada weli xanaanaysaa guri yar baad soo yar sahminaysaa oo qurux badan ninkana iska bada hooyada waxaan garanayaa dabada iga riixlo gumaysiyo waxaan taanaa fartan ku guursato ma socod marka wali xataa weynaato xataa kaama hadhayso hooyadu macnaheedu dhacdiya dhalataan raxmaanka baryada u dhigaa calaacal inuu dambigaaga dhaafo ilaahay kuma dhantaalo jirkaaga ka dhowr cadaabta dhuxulo iyo naar ma saaro kolkii aad jashaa dhammaato qabrigu ha ku soo dhoweeyo ilaah nuurkiisa kuu dhig dhismaha jannadii firdowsa ilaah kugu dheelmi hooyo daahaa nabigii udgoonay sallallahu alayhi wasallam ilaah dhinaciis ku jooji aamiin halkaasay nooga egtahay maasadii maxaa hooyo saaxiibkii waan ku gubaabinayaa suu sheekhu sheegay wax allaal inama alacmaalu binniyaad weeye sidaa yareed hadda hooyooyinkaan ugu nasteexaynayno innagana miisaanka xasanaadka ilaahay noogu kordhiyo dadka ajirka shaqaysanayaan ka mid nahay asalaamu calaykum maasha allah maskaxdaada allaha ku daayo wuxuu ka hadlay hooyo caawa barnaamijkeenana hooyu ahaa laakiin siduu uga hadlay waa sidii aan aniguba idhi hooyada xaraarigii xadkaygii baan hayaa